kusoo dhawaada wararkeena habaynimo ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacmeen dagaal beeleed culus oo ilaa maanta ka socday deegaanada Jicboor iyo sidoo kale meegaagta ee galbeedka gobolka Mudug halkaas oo ay isku dagaalayaan ama ay ku dagaalamayaan laba reer oo ka soo kala jeeda bandiirada iyo Galdogob oo Galmudug iyo Puntland ka kala tirsan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkaas lagu hoobtay halkaas ka dhacay ayaan warbixinada kaga haynaa qodobada kalena waxaa kamid ah qof walba oo ajaanib oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa baaritaan lagu sameeynaya si loo kala hubiyo inuu ka tirsan yahay kooxda Daacish iyo in kale Puntland tilaabooyinka ay Boosaaso maanta kaga dhawaaqdayna warbixin baan idinkaga hayaa qodobada kale waxaa kamid ah shirka golaha wasiirada Puntland oo ah mid xasaasi ah ayaa toddobaadkan ka dhacaya magaalada Boosaaso qodobada ku jira waa kuwa xasaasi ah Daacish iyo amuro kalena waa looga hadlayaa madaxweyne Danina Boosaaso ku sugan yahay sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Daacish iyo Puntland ayaynu dul istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalkan la gareeya channelkeena subscribe saara haddii aan ku bilaabo wararkeena Boosaaso guddiga amniga gobolka Bari ayaa maanta shir ay ku yeesheen magaalada Boosaaso waxa ay ku sheegeen in ay baaritaan ku sameynayaan dhammaan dadka ajaanibta ee ku sugan magaalada Boosaaso si loo hubiyo inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish iyo in kale taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari ee Puntland gaashaanle sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir warbaahinta uu akhriyay go'aanadii ka soo baxay shirkaasi ayaa sheegay in baaritaan lagu sameynayo dhammaan ajaanibta ku sugan magaalada Boosaaso iyo guud ahaanba gobolka Bari si loo hubiyo inay markaasi inaysan adeegsan kooxaha Daacish inaysan adeegsan ama aysan ku shaqaysan ama ay ka tirsanaan hadalka taliyaha ayaa waxa uu ku yiri maadaama kooxda argagixisada ee la dagaalamaya ay u baahan yihiin kooxaha ajaaniba waxaan faraynaa laamaha baarista qaabilsan inay baaritaan ku sameeyaan dhammaan ajaanibta ku sugan gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso si loo hubiyo in aysan adeegsan kooxda argagixisada ee dagaalada aan kula jirno ayuu yiri taliyuhu wuxuu yiri wax badan baa isku dhex dhuunta oo u baahan in baaritaan lagu sameeyo ayuu hadalkiisa ku sii raaciyay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari waxa uu sidoo kale sheegay in magaalada Boosaaso laga mamnuucay in wax hub lagu dhex qaato isla markaana la joojiyay beesolka madow ee lagu dhajiyay muraayadaha gaadiidka si looga hortago inay ku dhuntaan kooxaha argagixisada ee khatarta ku ah amniga iyo xasiloonida Puntland ayuu yiri taliyuhu dhinaca kalena weerar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in xubnaha golaha wasiirada ee Puntland ee ku maqan Garowe lagu wargeliyay inay yimaadaan magaalada Boosaaso oo ay ku qabsoomayeen shirka khamiislaha ee golaha wasiirada ee Puntland toddobaadkan shirka golaha oo khamiislaha ee toddobaadlaha uu shir gudoominayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Danay ayaa sida wararku tilmaamayaan waxa looga hadli doonaa qodobo xasaasi ah oo ay ku jiraan dardargelinta howlgalka ciribtirka argagixisada hogaadinta guulaha waaweyn ee ciidamadu gaareen ee dagaalkaas madaxweyne Danay oo dhawaanahanba ku sugnaa magaalada Boosaaso ayaa sidoo kale shirkaasi shirar la yeeshay qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka beelaha gobolka Bari oo uu kala hadlay in dawladda lagu garab istaago howlgalka la dagaalanka argagixisada oo ay ku jirto markaasi buraha calmiskeed iyo sidoo kale calmadow oo ay Daacish iyo sidoo kale al-shabaab ay dhasha dhigteen halkaas oo ay Puntland ka wado gulf dagaal oo ay Daacish ku bilowday sheegtana marka ay Daacish ka quusato inay dhinaca kale calmadow iyo al-shabaab ay soo jeesan doonto Boosaaso ayay indhaha warbaahinta iyo sidoo kale dadka shacabka ee Soomaaliyeed toddobaadyada ku jeedaan halkaas oo mid ka mid ah dagaaladii ugu waaweynaa ee Puntland gasho ka socdo Puntland waxay sheegtay in ay dagaal kula jirto koox caalami ah oo ay u dagaalamayaan ku dhawaad 800 ajaanib ah kuwaas oo aan hubaysan isla markaana ka yimid dalal kala duwan helayana taageero ay dibadda iyo meelo kala duwan ay ka helayaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danay qodobada uu shirka toddobaadkan ee golaha wasiirada uu kaga hadli doono iyo sida uu dagaalka uga hadli doono ayaa halkaasi laga dhursugayaa maadaama maalinta khamiista ah halkaasi shirka ka dhacay ee golaha wasiirada ee Puntland lagu wargeliyay in ay yimaadaan marka laga yimaado shirka golaha wasiirada Puntland ee ka dhacay Boosaaso dhinaca kaleeto dagaal qaraar ayaa wali ka soconaya buraleyda gobolka Bari waxa ay sheegtay Puntland mar kale inay diyaarado daroodis oo ay kooxda Daacish leedahay dhulka soo dhigtay qoraal ay ku baahisay barteeda Facebook ayay howlgalka ciribtirka argagixisada ee Puntland waxa uu ku sheegay in ciidanku ay la wareegeen talisyo cusub oo ay lahayd Daacish isla markaana ay faahfaahinta keeni doonaan goor dhow
shalay waxay sheegeen in dagaal adag qaadeen oo ay 12 daran soo rideen sidoo kale waxay sheegeen in maalin walba ay ciidamadu gaarayaan goobo aysan horey u joogin oo ay daacish haysatay isla markaana ay halkaas ku soo qabanayaan diyaarado talisyo cusubna ay la wareegayaan iyo goobo muhiim u ah kooxda oo ay kamid tahay xarunta caafimaadka ee kooxda iyo sidoo kale kaydka raashinka ee kooxda daacish oo ay ciidamada Puntland sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen halkaas dal uga nimaano wararka gobolka bari imikana gobolka mudug hadii aan nimaano dagaal aad iyo aad u kululo aadna u qaraara ayaa maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka mudug galbeedkiisa dhaca gaar ahaan inta u dhaxaysa bandiirada iyo Galdogob halkaas oo dagaalku u dhaxeeyay laba reer oo ka soo kala jeeda degmooyinka bandiirada oo Galmudug iyo Galdogob oo Puntland labada reer oo in dhawaalaba dagaalkoodu ahaa mid taagan oo aan xal loo helin isla markaana halkaas ka dhacay deegaanada Jecbor iyo deegaano kale u dhow ayaa waxa maanta la soo sheegaya in dagaal saaka bilaamay uu ilaa gabaldhici soo gaaray kaas oo ay ku dhinteen inta la xaqiijiyay dad ka badan 20 qof tira intaas ka badanna ay ku dhaawacantay dagaalka ka dhacay deegaanka Jecbor oo ay u dhaxeeyay beelahaasi Galdogob iyo bandiirada ka soo kala jeeda ayaa waxa uu maanta ku soo aadaya iyadoo magaalada Gaalkacyo todobaadyadii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen shirar waaweyn oo ay markaas xal ugu raadinayeen dagaalka Puntland iyo Galmudug wasiirada ka socda oo Gaalkacyo shir ku yeeshay waxa ay sheegeen ama ay ka shireen dagaalkaas ayagoo qodob ka soo saaray ay ka mid ahayd in dagaalka la joojiyo gudina loo xilsaaray dhammaanba dhibaatooyinka iyo wax walba halkaas ka jira sidoo kale ismada dhaqanka ee labada qabaa'il ama ismada dhaqanka ay raahday Puntland iyo Galmudug ee gobolka Mudug oo kula yeeshay dhawaan ayaa iyaguna wax iska yiri dagaalkaas iyo xal u helidiisa laakiin wax walba ay Puntland iyo Galmudug sameeyeen ama ismada dhaqanka ay labada dhinac sameeyeen iyo odayaasha ay hal bacaad lagu lisay noqday maadaama wali dagaalkii halkaas ka soconayo saakeena ay rasaasta isweydaarsadeen labada dhinac dagaalkan labadani qabaa'il u dhaxeeya ayaa si ka duwan bariyihii hore sidii dagaalkaas lagu yaqaan oo socda maadaama qolo walbaba ay deegaanka ciidamo hor leh oo ay ugu magac dartay kuwa ilaalada deegaanka ay halkaas geysay ciidamadani qabaa'iladu oo ay saad hub cunto iyo sidoo kale wax walba ay u baahan yihiin ay beel walba ciidamadeedu u geysanayso ayaa wax kala qaada la leeyahay sidoo kalena ciidamo ayaa la leeyahay kala dhaxgalo oo labadaas qabaa'il dhexdooda intay istaagaan yiraahda annaga ayaa nabadda ka shaqeynayna iyadoo dawladda federaalka iyo labada maamul ee Puntland iyo Galmudug si weyn loogu dhaliilayo doorkooda hooseeya ee xalud xalida dagaalkaasi dhinaca kale labada qabaa'il ayaa loo soo jeedinayaa baaq ah in ay nabadda raadiyaan oo ay fursad siiyaan colaadana ay la dagaalamaan dadka baaqyada u dirayo oo ay bulshada rayidka ku jirta ayaa aad isu soo taraya si xal loogu helo dagaalka mudug galbeedkiisa ka soconaya labadani qabaa'il oo intooda ugu badan ee dagaalamayay tumanaankii sare ee la soo dhaafay ayaa marar kala duwan waan iyo xal u helis laga dhex sameeyay ay fashilmeen ayadoona habka nabadda loo sameeyo ay ku baxdo sanad walba dhaqaale aad u fara badan oo ay bixinayaan hay'adaha caalamiga iyo dadka nabadda u ololeeya iyo sidoo kale dawladaha dagaaladaas iyo nabadeyntaas la sameeyay oo bandiirada Galdogob Gaalkacyo lagu kala qabtay marar kala duwan ayaa ayagiina fashilmeen maadaama wali rasaastu ay dhimanayso wiilasha labada dhinacna ama halka wiilasha Soomaaliyeed ay ku dhimanayaan wixii warar ay ku soo kordha xaaladaha guud ee dalka Soomaaliya gaar ahaan dagaalada Puntland iyo dagaalka gobolka Mudug ee dhinacyada qabaa'ilada barnaamijyadeena dambe ayaan kula wadaagi doonaa aad ku mahadsantihiin daawashadiina halkaas hadda nala soo gaartay waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalkan like saarto channelkan subscribe saarto muuqaalkan aad share gareyso saaxiibada la wadaagto nabadgelyo